تنصين قوة إيا عافماضة كاننا وأبو القدامى الشامي انت مرء أخذ بيدتك أو حصي فضلك جهادك على درتي إيا أهمية ديسة سامركي وكسر بحي مسجدك والله بالله بإن لو ديار قروب جهادك أبو قدامى إساقو ميل مرية مس إسلام بأو يري سؤاله أبو قدامى السلام عليكم سلامتك موسى قادم واي وحو كبق إني في المصر أو واي النبي وحو يري فاتقوا الدنيا واتقوا النساء اسكجر أدونك واسكجر أحوينك أو كما قادم تيكو وديتي لبعض تي سدحاد بي وحي إسلام تتري السلام عليك أبو قدامى سيدا اسمي يلاندتك وناكسني سوان استاقبو يري oo haweentii ugu soo socotay waxay tiri waxaan ku dhageystay adigoo jihaadka dar alla dadka ku boorinaya waxbaan iska barbaaray mana helin wax ka qaalisan labadan xirmo oo tintayda ah qaado oo afxir uga dhig faraskaaga dar alle waa intaasoo leega mid yeelaa kuwa u jihaada arrinka alle laa ilaaha ila allah waxay u jaraysaa tinteeda si loogu xiro fardaha alle iyo ciidanka tukalana waxay u jaraysaa timaheeda si ay ugu ekaato naagaha xun maxay kala fog yihiin bari iyo bugo maxay kala duwan yihiin labada kooxood gacaliyayaal qofkii qolo isu ekeysiyay iyagu ka mid yahay bal ka warrama haweentan maalintii xigtay wuxuu yiri Abu Qudama waxaan u baxay jihaadka dar alle mise wiil yar oo koray ah baa naga daba yimid isagoo leh Abu Qudama wajiga alle baan kugu weydiistay inaad ii ogolaato inaan ka qayb galo jihaadka dar alle wuxuu ku yiri waxaa kugu tuman fardaha wuxuu yiri ilaahay magaciisa kugu weydiistay inaad ii ogolaato saa wuxuu yiri Abu Qudama hadaba hadii lagu dilo waa inaad iiga shafeecda alle taasa sharti ah wuxuu yiri wiilkii waa tahay saa wuxuu ku qaatay faraskiisii oo la tagay ilaa ay iska hor yimaadeen ciidankii Room markii ay sahlaan ciidankii Room wuxuu yiri wiilkii yara alla wajigiisa ugu dhiib 3 falaarood markaasuu yiri Abu Qudama waa dayacaysa wuxuu wiilkii yiri alla wajigiisa ugu dhiib 3 falaarood saa wuu u dhiibay markaasuu hal falaar inta qaaday yiri salaamu alayka Abu Qudama bismillah oo gamay saa hal gaal buu ku dilay saa tullabaad buu gamay oo gaal labaad ku dilay oo tii saddexaad gamay oo gaal kale ku dilay saa falaar baa ku timid oo killida kaga dhacday oo faraskii ka doortay isagoo leh nabadgeliya Abu Qudama salaan sagootis oo Abu Qudama intuu ka degay faraskii ka daba tagay oo yiri ha ilaawin dardarankii saawilkii wuxuu yiri kanina waxaad u geeysaa hooyaday wuxuu yiri Abu Qudama waa tee hooyada wuxuu yiri hooyaday waa islaantii ku siisay labada tuduceetinta sharayto bal ka warama guriyaha muslimiinta sida dhabta ah loogu tarbiyay la ilaaha illa allah muhammadan rasuulullah ma aragteen guriyaha muslimka marka lagu barbaariyo la ilaaha illa allah muhammadan rasuulullah واسداس هوجدي وناكسني وبدك واهنونسا والتاسفينا بنت عبد المطلب نبي عيددي صلى الله عليه وسلم هوين إذا سهول كركاهد أصو صارتي أمده ليي سيف أقاتا أرنك الله وخد انتنين كذا وحونا كجتك الزبير يسقوا الماء وحي كبر بارسي عداديك إيا حوق إيا فردفول كمبر بارن جلجلاء إيا الراح الجعال إيا استجبين هير ما انت ويلش إيا رقبا نقدين رجل مود aan rag ahayn waxay ciyaartiisa ka dhigtay shiis barasho iyo nashaabtan oo kama dhigin ciyaartiisa kubad iyo bushkuleeti hadba gees ula gooshid waxay u hormarinaysay wax waliba oo cabsi leh waxay ku tuureysay qatar kasta waxay rabtaa inuu ka noqdo xubin waxtar leh mujtamaca muslimka haddii uu ka gaabiyana way garaacaysay oo xanuujinaysay heer oo mid ka mid ah adeeradiis maalin ka mid ah maalmaha ku yiri wiilka waxaad u garaacaysaa سن عيب نحرس لعنه ما واحد قراعيد هويو ساوحي ترى قفكي يراهد سيدا بين بو شيغي waxaan u garaacayaa inuu ku barbaaro adeeg oo xoogsado oo uu jabiyo ciidanka cadowga oo soo taxaabto waxay u haajirtay almadiina iyadoo markaas lixdanka ku dhow waxay ka soo tagtay Makka iyadoo ula cararaysay diinteeda Madiina maalintii Uhudna markii ay aragtay wixii ku dhacay muslimiinta iyadoo ka waraabinaysay biyo waxay u soo kacday sida aar oo waran ka qaadatay mid kamid ah kuwii la soo jabiyay oo dhex martay ciidankii iyadoo cartamaysa oo leh hoogiina ma waxaad kaga tagaysaan goobta rasuulkii Allah sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam Zubayr wiilkeedii ku yiri ka gaar hooyada oo soo celi oo Zubayr yiri hooyoy soo laabo
markaasay tiri iga leexo hooyadaa waaye wuxuu Zubayr yiri hooyo rasuulkii Allah wuxuu ku amrayaa inaad soo laabato waxay tiri amrid waxaale Allah iyo rasuulkiisa oo istaagtay oo dabeeta tiri wallahi waxa isoo gaaray in la sarwajiyo walaalkii Xamza waasa sabri ilaahay dartii saamarkii uu dagaalkii Uhud dhamaaday bay waxay soo kor istaagtay walaalkeed oo calooshiisii dibadda la soo dhigay oo beerkiisii la baxay oo dhagaha iyo sanka la jarjaray oo la sarwajiyay markaasay alla dambi dhaaf u bariday iyadoo leh alla dartii bay ku soo gaareen aniguna waan ku raali ahay qadarta alle ma barooran ma garaacin dhabanada ma jeexjeexin dharkeedii saasna lagama dhowray oo wata maalintii dagaalkii godkana dagaalkii ahzaabta markii uu nabigu galiyay qalcad adag haweenkii muuminiinta kagamana uusan tegin wax rag ah saaciidankii wuxuu aaday godka waxay aragtay Safiya yahuudi u soo dhuumanaya qalcadda isagoo doonaya inuu eego inay qalcadda joogaan rag iyo in kale si ay yahuuda u galaan qalcadda oo u soo taxabtaan haweenka iyo caruurta qafaalahan markii ay aragtay Safiya waxay soo qaadatay tiir qalcadda kamid ah oo ku weerartay ilaa ay ka dishay intaasna uga maharine ee inta qoorta goosay bay qalcadda korkeeda fuushay oo madaxiisa yahuuda ku soo dhex turtay markaasay yiraahdeen awalba waan ogeen inuu Muhammad rag la'aan ka tagayn haweenka Allah karaale noqdo Safiya waxay tarbiyeysay wiilkeedii tarbiyatan u wanaagsan waxa musiibo ka soo gaartay walaalkeed waa sabartay waxayna u shaqaysay diintan oo ku weyneed hirgelintiisana u howlgashay waana sida laga dhowrayo haweenka muslimadaha ah walaalooyin